Assalaamu calaykum guys kusoo dhawaada casharadeen imtixaanaha anagu barateen haadahan oo kale maalin walba inaan idin soo gudbino casharkeeni maanta waxa uu hadlaynaa sidee loo baaraa cudurka oo magaaladan baabi'iyay ee loo yaqaan kaduudshaha ama dengue fever luqadda qalaad lagu dhaho sidee loo baaraa dengue fever waxaa lagu baaraa waxaa jiro wuxuu qabaa serological rapid test ama serological kit oo loogu talagalay jir lagu baaro dengue fever waxaa la dhahaa waa virus oo jirka bini'aadamka soo galayo kaasoo gudbinayo wax loo yaqaano mosquito aedes gudbiso markay gudbiso qofka bini'aadamka wuxuu weeraraa plateletska weeraraa shalay ka soo sheekeynay yesterday aan qaadanay baarbaar waa ka arkay haddii aad muuqaaladan u baahan tahay igoo dhammaystiran fadlan ka dhex baar playlist in Soomaali ka dhex baar waxaad ka arkaysaa muuqaaladeeni iyo casharadeeni oo af Soomaali ku xusan aedeska gudbiso waxay gudbisaa aedeska waxa loo yaqaan dengue fever sidee loo baaraa dengue fever waxaa loo baaraa qof bini'aadamka dhiiga ka soo qaaday waxa ka soo qaaday xididka dhiig ka soo qaaday sida dhiiga loo qaado normalka caadiga oo soo qaaday waxa ku soo shubanay tiyubka caadiga waxa ku shubay tiyubka loo yaqaano plain tube kadib waxa gelinay centrifuge oo wareejinay waxa ku soo baxayo result in oo dhiiga kala degtay dhiiga markuu kala degto oo soo qabanay dhiiga waxa soo qaadanay rapid testigaaga xaashada ka fiiqe meesha saarane waxa ku dhibcinay serumka ku soo baxa ku dhibcinay dan waxa kula daray reagent ko wato dan waxa sugay few minutes sugay after a few minutes waxa ku soo baxayo double rig hadoo oo jiro IgM oo dengue fever ama IgG problem hadoo jiro asaga ku soo baxa wuxuu ku leeyahay dengue fever problem ma jiro hadoo labadan rig ku siiyo waxa waa it means waxa haysataa inuu qofkan dengue fever qabo haddii uu ku siinina waxa waa qofkan dengue fever ma qabo iska ilaali oo calaamadaha dengue fever-ka waxay ka dhowdahay calaamad ahaan sida malaariyada kale iyo typhoid qofkaas oo malaariya qabo oo wuxuu iska dhici karaa inuu dengue fever qabo waxaana laga yaabaa inuu u dhinto malaariyadaas oo la dhaho qofkan kaduudyo waa dilay marka cilmi dhagooleedkaas ana baabi'iyay dengue fever-ka iyo malaariyada waa in la baaraa si loo hubiyo qofka cudurka uu qabo si uu daawo u qaadan karo haddii uu malaariya qabo daawo u qaadana malaariya hadduu dengue fever qabana waxaa la siinaa raashin kaalmaati u ah ama waxa la siinaa daawooyin kaalmaati oo cudurkan difaaci karo ilaa antibiotic la sheegay waxa waa inuu jirkeena difaacaysa oo soo kobciyo oo ilaaliyo marka qaabkaas loo baaraa resultkaas ku soo baxayo resultkaas arkay dan waxa la patient oo report gareynay waxa la dengue fever qabtaa hadduu qofka above 50 years old oo jiro immunity-giisa aad u liitaa hadduu under 40 years old yahay ama 50 years old hadduu yahay hadduu ka yar yahay jirkiisu way haystaa waxaa ku filan la sii raashin inuu cuno ku filan ama daawooyin yar kaalmaanta inuu qaato laakiin hadduu above 50 yahay waa adag tahay raashin kaliya inuu taro wuxuu u baahan yahay daawooyin strong la siiyo sida ciprofloxacin normal saline waxyaabahaas oo dhan oo qaadanaa soo jirkiisa difaaciisa u kobciyo markaas na dhiirigeliya si aan u soo gelino muuqaaladan ka sii badan fadlan haddaad channelkeena ku cusub tahay subscribe saar dadka oo caafimaadka barta oo muuqaalkan daawanayna waxaan ka codsanaa iyo dhammaan asxaabta kale inay u share gareeyaan dadka oo ku kadsoomay inaysan dengue fever-ka baarin because dengue fever-ka iska baarin ama malaariyada hadda iska baarin waxa laga yaabaa cudurku ku hayo inuu yahay cudur oo typhoid ama cudur dengue ama cudur malaariya saddexdooda calaamadaha iska dhow yihiin marka dadka waxa baabi'i kara cudurkaana baabi'i kara hadduu cudurkan baabi'ina ummadeena waa baaba'aysa marka ummadda aan badbaadino ilaahay wuxuu yiri man axyaa naasa fa ka'annama axyaa naasa jamiica hal qof badbaadayso waxay la mid tahay adoo ummad dhan badbaadiyay marka waa maasantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu